السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaantiin waan salaamaya kuna soo dhawaada youtube channelkayga haddii tahay markii isku kiin horeysay barasho wanaagsan waana kusoo dhaweynayaa videogan wuxuu ku saabsan yahay rabadaan preparation iyo unboxing oo ah waxaan alaaba ka dalbaday Temu iyo Shein marka waa qaarkood waxyaala qaar aan ku organize gareynaya madbaxa iyo aqalka qaarkoodna decoration marka waxaan is idhi why not mad la wadaagtid dadka marka waan isla eegaynaa waxayna tahay markii ugu horeysay furayo isku waan isla eegaynaa waxaan insha Allah ka bixin doonaa feedback san wadi inay yihiin inay cajabiyeen iyo in kale okay hayna bilaabato in Ramadan Mubarak sticker ka ku qoran tahay xoog buu qurux badnaa weli waan isticmaalin aqalku ma san dajin weli waan ka fikiraa meesha ku dajin lahaa laakiin xoog buu cajabiyay kaasi wuu cajabiyay horta waxyaalahan aan isla furi doono xoog bay u fara badan yihiin insha Allah rajeynaya qaarkood si fiican idima tusi karo marka waxaan sameyn waan idin soo raacin sawiraantooda insha Allah iyo insha Allah linkiyadooda waa idin soo raacin doonaa malqacadaha yaryar cute bay hayeen way cajabiyeen inkastoo ay size-kan moodiyay ay xoog uga yaraayeen laakiin way cajabiyeen inkastoo size-ka waaweynaha yeelaan anaa size-ka ugu yar dalbaday laakiin intan inay dhaamaan banu haystay baasha yar tonerka timaha silaad ku samaysatid xoog bay qurux badan tahay xoog bay qurux badnayd waanan ka helay qiimahooguna qaali maaha alaabtaas inaan dalbaday si u badan yihiin in yar moojaane baashaan furayo waxa weeji isna iyaguna waa decorationkii Ramadaanka wuu qurux badan yahay laba xabaan dalbaday mid cadaan iyo mid madow ah midna walaashay yar baan dalbaday midna aan dalbaday xoog bay inay cajabiyeen labadaba qiimayaashooduna wax saqaaloosi ah way ku jir yihiin badankooda waa xoog u jabnaayeen baasha yar in imika furayo xoog bay cajabisay warta wax badan way ku fududeynaysaa saliidda hadda tusaale ahaan intaad Ramadaantina soo dhawaatad intaad wax shiilatid astiraadidoo kale meelaad ku shubatid way ku kala daadaadanayso kale wada adeegsan kartaa xataa bariiska waxyaalo badan oo meel ku shubaad leedahay waxyaalo badan bay ku fududeynaysaa xoog bay cajabisay saddex yar waxa isku jiray hayaan yar kala size weyn laakiin way cajabisay bahashaas wax ana rabina wax ku falo waxaan tijaabinayahay marka aan tijaabaha ma soo iibsaday walaa way fiicneed xoog buu qurux badnayd imika inta wax furo way cajabiyeen xoog bay cajabiyeen inkastoo markayga horeba marka waxaan dalbanayo ana review-ga eego oo aanan badanka aan iska dalbanin laakiin insaan ka filay wixii imika aan arkay badankoodu way yihiin wayna cajabiyeen kana kala ku samaysan kartaa mask waxyaalo hada doonto kariimo waxaad doonto ku shuban kartaa size 300 ml buu ayuu qaadayaa baan filayaa xoog buu fiican yahay waa idin soo dhigay sawirkiisana caagadahan yaryar waxa weeji waan haystay iyagoo kaloon ka dalbaday iyagana Shein waxa weeji waan idin soo dhigi doonaa video morning shot-kaygan ku samaystaa way igu yaraadeen wuxuu banu isticmaalaa marka waxaan ku soo darsaday iyagoo in yar ka design duwan oo dir moodidina ka yar waaweyn yihiin qaybtii kalaan furayaa Temuga horta wax badan wax iska badan baan dalbaday laakiin waan u baahnaa waayo Ramadaanta badanka waxay kaaga dhacaysaa intaad maanta iska daba meeraysanayso wax karinaysid soo aniguna waxaan rabaa inaan Ramadaantan organize aan noqdo waxaas waxa weeji koofiyad xarqadeeduna xoog buu fiicnayd baasha yar waxa weeji iyada video baan hordhacaad ku soo aragtay ma filayaaba tan kaleemka gacantan ku hayana xoog buu fiican tahay haddii ka buuxsanto
meesha baambada waxaas iyo kan iyo maxay ahayd tuushka waxaa la soo dhan xoog buu hay kaaga caawin kartaa bahasha kale gacanta ku hayana waxa weeye air fryerka horta anuu rabadaanta waxaan rabaa intaan waqti save garaysan karay inaan save garaysto labada shay ay isku xigeen gacantan ku hayay imika midi waxa weeye waxaan rabaa air fryerka badanka inuu clean in noqdo waxaan gelinayay isagoo diyaarsan aan hore ka geliyo bahalada yar waa one time use kawaa iska isticmaalo bacaha yaroo kale tusaale ahaan hadda jaambad ay wax kugu jiraan oo kale oo aad rabtid jaambad wax kugu jiraan oo kale oo aad rabtid inaad yar daboolatid kuwaasoo kale iskaga daboolan kartaa waana iska tuuraysaa wax badanna way yihiin bacahaasi xoog bay kula talin lahaa ani horta way cajabiyeen waxaad ku diyaarsan kartaa suubabka iyagoo diyaarsan si aad maalintaasun had u karsatid waa waterproof waxaad dusha kaga qoran kartaa wuxuu yahay kaama masaxmayo xoog bay u fiicnaayeen sizes badan bay leeyihiin wayna jabnaayeen run ahaantii qaali maysan ahayn marka waxyaalaha badankan dalbaday waxay u badan yihiin waxyaalo ku saabsan cuntooyinkan bahasha kale gacanta ku haya iyadna waxa weeye shaandho marka waxaad ku shaandhaysan kartaa caanaha iyo waxyaalo badan xataa xinaad ku shaandhaysan kartaa waxyaalo badan ku shaandhaysan kartaa bahasha yaran gacanta ku haya waa sticker-yadna haddii aad baco caadiga aad hilibka ku guratid aad leedahay oo kale xagga hoose gelisid wayna jabnayd waanad ku dul qoran kartaa wuxuu yahay saad xagga hoose hadhow markaad kala soo baxsay ku fududaato saad u garatid bahasha yar kale waxay ahayd bahashii dabqaadka yar waana as decoration ahaan baan u dalbaday ta ugu yar bay ahayd waan ma haystaa dhowr girgire laakiin as decoration ahaan baan u dalbaday isaga uuna cajibi run ahaantii waxyaalaha yaran dalbaday badanka waa waxyaalo madbaxa iga caawinaya si aan hadhow toole ay wax kasta hay igu yar muuqdaan wax kastaan u baahanayna si yaro easy han u qaban karo marka insha Allah taasna waxa weeye findhicilkaad ku ridan kartaa ama findhicil ahaan baan u siibsaday waana findhicilka loogu talagalay marka caadi ahaan tiimigu ugu jira tan waa tii barafka mid weyn baan ka haystaa iminka size-ka waan ku qaldamay waxaan rabay inaan isagana weyn aan iibsado baan ayaan ku dhuftay ahayd xoog bay u yar tahay laakiin way iska qurux badan tahay waan ka helay teeda weyn baan haystaa marka mid weyn iyo mid yar ayay noqonayaan alaabta saan furiyay waan ku daalayba iminka girgiraha yar oh my goodness girgirahan yar si aan girgiran faynuskan si aan caadi ahayn biyo cajabiyey wallahi si aan caadi ahayn xoog buu qurux badan yahay aniga mid yaro walaalanahay horta waxaan rabaa rabadaanta insha Allah inaan meel yaro ku cibaadaystaan samaysto fikirkaana mid yaro walaalanahan ka saxday xoog buu qurux badan yahay lacagtiisa umaba qalba odhan karaa uu ka dhacayay laakiin horta baterigiisa u wataa waad shidaysaa markaa yarba uu shidmayaa laakiin wallahi xoog buu ayuu cajabiyey cute weyn markaa rabadaanteedaan ku qurxsanaya insha Allah biidnillah waan idin soo dhigayaana haddii ay idin cajabiyo waad dalban kartaan xataa xoog buu jabin yahay qaali maaha markaan faynusada yar arkay waxaan is rabaa decorationka rabadaan taba koona kaaga filan rabadaan bay xasuusinayaan waa lix baan dalbay ahayd saddex iyo saddex waxay isugu xidhan yihiin saddex xoog bay noo jabnaayeen horta waa idii soo dhig horta anu leydhasha laygu qaatay xoog baan u jecelahay leydhasha hurdadana leydh wiin baan u dalbaday mid kaloo idin tusin baa jiray isagana oo maxay yaday aan dalbaday marka aqalka rabadaanta laga dareemaan sila insha Allah bahasha yar waxa weeji bahal yaroo waan video baan ka duubay markaan aqalka waan ku dhajiyeyba waxa weeji bahasha cute bay ahayd way i cajabisayna tusaale ahaan sharbaadka aqalka lagu dhex joogo kale mararka qaar anataas ka saaro dhulaha yaraadan ku waayo intaan raadinayo waxaan siray hada halkan yar siga dhex ridatid maadaama inta dhulku qabow yahay hooda aqalkan aad ku dhex joogjoogsid badanka sharbaad marka waan xoog bay i cajabisay bahasha yar waana faa'iidana way leedahay aniga markaan suray way isii cajabisay bamoor oodna taayar cudbigaad ku ridan kartaa kuwa makeupka ama sayropkaad ku marsanay sidoo kale
baalka yar sticker buu ahaa waan daalay wax san furayay marka taas ma furin laakiin maxay heday in stickeran gidaar ku dhijinaha waxa ku qornaa aayad qur'aana ku qornaa marka insha Allah hablo waxaan naftayda hortaan u dardaarmaya iyo nafihiina in aan rabadaantan insha Allah aan ka faa'iideysano ilaahayna caafimaad qab nagu gaarsiiyo waxaan idin sii leeyahay rabadaan mubaarak rabadaan kariim insha Allah rabadaanta caafimaad ayaa aqbalaad ya rabbal